xogayaha warfaafinta ee xisbiga macaaridka UCID ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee suxufi Khadar Macalin Deeqa oo tafatiro ka ah telefishinka Bulsho isla markaasina maanta xaalad caafimaad daro loo dhigay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa waxaanu xogayuhu baaq u diray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland iyo ururka suxufiyiinta ee Soldier waxaana hadaladiisii ka mid ahaa saacado yar ka hor daqiiqado yar ka hor baan ka soo baxay dhakhtarka weyn ee Hargeysa Khadar Macalin Deeq muddo imika bila ayuu u jiifaa xanuun iyadoo xaaladiisu mar ka sii dambaysa ay sii cuslaanayso waxaan aad uga xumahay muddada bisha ah ee uu xanuunsanayay inaanay ka soo agwareerin ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier xukuumadda Somaliland gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan maanta doonayaa marka halkan inaan baaq ka diro waxaan u dirayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo aan leeyahay suxufiyiinta wasaaradda ka tirsanba markay wax yar ku dhacaan waa gaadhaan emergency-ga markaba ugu tagtaan iyadoonay saacada ka soo wareegin uma dhagan nugulidin saxafiyiinta madaxa bannaan leh waa maxay sababta tolo dhaqanka wasaaradda warfaafintu waxay ka mas'uul tahay qaranka mas'uul uga tahay dhammaan warbaahinta qaranka iyo saxafiyiinta Somaliland oo dhan waxaan leeyahay halkan aan uga dirayaa wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud warninka Khadar aad iyo aad buu xanuunsanayaa degdeg u gaara degdeg ha loo gaaro dadku wuxuu isu taraa intuu nool yahay buu isu taraa ururka Soldier waxaan leeyahay idinka ka mas'uula dhammaan warbaahinta Somaliland ilaa imika waxa ayaan daraa inaydan dul istaagan xitaa arintaa waxaan leeyahay wax ka qabto u taga oo wixii aad tari karaysaan degdeg ugu tara ninkaasi dalka gudihiisa waxba lagama qaban karo marka xaaladiisa soo wareystay xanuunkiisu waa maqaarka dhakhtar maqaaro gaarana ma lihin ninkaas wuxuu u baahan yahay dhakhtar daweed buu u baahan yahay waxaan ugu baaqayaa xukuumadda oo ugu sarreeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ninkaas wuxuu qabasho u baahan yahay waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badda 24 TV magaalada Hargeysa.